بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة قرالك في Soomaaliya xeerka isku xidh erayo laba ama saddex ah. Isku xidh waxa loo yaqaanaa linguistics-ka liaison. qeexidda marka hadda waxaan ka hadlaynaa qeexidda faraqa hamsa hakad sare iyo hakad. Hamso waa ereygan carabiga soo qaadanay. Hakad sare waa apostrophe oo aan turjumay oo aanu bixiyay hakad sare. magacaas oo ka soo qaatay af carabiga oo loo yaqaan alfaasila al-ulya iyo hakad waa saddex tiir oo muhiim ah oo aan looga maarmin mideynta afka hooyo. markaas waa inaan la isku khaldin oo aynu bartan si cad ugu kala qeexno sharaxooda iyo adeegsiga. hakad waa sumadda halkan ka muuqata ee u dhaxaysa bilaha. waa sumadda loo yaqaano af carabiga faasilo, af ingiriiskana loo yaqaano coma. halkan kuma soo qaadayno waayo xidhiir lama laha isku xidhka ereyada. hamsa waa xaraf ka mid ah shibanayaasha farta Soomaaliga ee 22-ka. ereyo tiro badan baa xididadooda ku dhamaada. tusaalayaal: go, ba, la, ri, bu, lo iyo wix lamid ah. maaha sumad cod bay u dhigantaa Soomaaliga. waxaa lagu gartaa shaqal baa hamsadu kor saaran tahay sida ku cad tusaalayaashan hore. lama dul saari karo shibale. hakad sare waa sumad u eg hamso laakiin waxay kaga duwan tahay walaasheed sifooyinkan soo socda. kow, kama mid aha xarfaha farta afka Soomaaliga. laba, waa sumad muujisa isku dar laba erey ama saddex. afaf badan baa inala wadaaga sida ingiriisi, faransiis iyo wax lamid ah. isku xidhka ereyadu waa qurxiyaa oo hawl yareeyaa qoraalka afafka. tusaalayaal: waan tagaa dugsiga. waxaynu calaamadinay labada erey waa iyo aan. marka ay isku xidhmaan labadaas waxay isku noqonayaan waan tagaa dugsiga. marka hore waxay ahayn waa aan tagaa dugsiga, imikana waxay noqdeen waan tagaa dugsiga. hawraarta labaad: burco ayaan ka imi. waxa inoo suntan burco ayaa aan loo saddex erey. markay isku darsameen waxay noqdeen burcaan ka imi. baxdeen halkaa waxa sidaa loo leeyahay af Soomaaliga markaad ku hadlaysid sidii qof dee baranaya ma oranaysid waa aan tagaa, waan tagaa, burcaan ka imi. saasuu yahay sida saxaani waa sidaa, waana in sidaa loo qoro. marka waxa weeye tusaalayaasha hore bidixdu waa min laba erey waa iyo aan, laakiin midigta isku hal erey baa laga dhigay waan. isku qor iyo isku dhawaaqa. tusaalayaasha dambe ee bidixdu waa saddex erey burco ayaa aan, laakiin midigta saddexdii baa isku hel noqday dhawaaq ahaan iyo qoraal ahaan labadaba oo noqday burcan. marka waxaynu eegaynaa xeerkaynu soo noqonnaa. xeer baan arrintaa u sameeyey. xeerkaas waxa weye xeer isku xidhka ereyada liaison la yidhaha. isku xidh laba erey waa in ereyga hore ku dhammaado shaqal, ka dambana ku bilaabmo shaqal. tusaale: waa shaqal buu ku dhammaadaa ama waa shaqal dheer laakiin waa shaqal. ka dambana waxa weeye wuxuu ku bilaabmaa shaqal oo waa aan. markaas oo la isku xidhayo oo hal erey isku noqonayaan oo ah waan. isku xidhka saddexda erey waa in ereyga hore ku dhammaado shaqal, ka labaadna ku bilaabmo oo ku dhammaado shaqal. hadda halkaa u fiirso, ereyga saddexaadna ku bilaabmo shaqal. waan ku celinaya. saddex erey marka la isku xidhayo waa in ereyga hore ku dhammaado shaqal, ka labaadna ku bilaabmo oo ku dhammaado shaqal, ereyga saddexaadna ku bilaabmo shaqal. tusaale: burco waa erey shaqal buu ku dhammaadaa. waa ereygii hore aynu sheegaynay wuxuu ku dhammaanayaa shaqal. ayaa waa erey kale wuxuu ku bilaabmayaa
shaqal waxaanu ku dhammaanayaa shaqal ereyga saddexaad wuxuu ku bilaabmayaa shaqal markaa waa sidan waxa weeye ka hore waa inuu ku dhammaado shaqal ka labaadna ku bilaabmo kuna dhammaado shaqal ka saddexaadna ku bilaabmo shaqal waynu haynaa markaas oo uu noqonayo burcan oo isku hal eraya qoraal ahaan iyo dhawaaqaan fiiro gaar ah isku xidhka laba erey ereyo badan baa sababa iyagoo raacaya xeerka tusaale waa baa ma haddii halkaba ereyo ereyadaas kuwa isku darsamayaane isku xidhmi doonaan waa aanu uu ay aanu aydu maalin markaa afka ku hadlaysaan maalin ba arrimahan way soo maraan waan arkay wuu arkay way aragtay markaa waxa weeye saasay isugu xidhmayaan isku xidhkii saddex erey erey keliya ayaa sababa kaasoo ah diireeyaha yaa la-aantii ma dhici kartaa hawshan tusaale dhixirka ha iska gooyaan lahaa dhuuga loo xidhay ereyga suntan ee gooyaan ayaynu hadda diiradda saaraynaa waa saddex erey oo isku xidhan gooyo ayaa iyo aan xeerkiibu ku shaqaynayaan gooyo shaqal baa u dambeeya ayaana shaqal baa u horeeya shaqalna waa ku dhamaata aanna shaqal baa u horeeya markaa saasay isugu darsamayaan hadda waxaanu u gudbaynaa ahmiyadda isku xidhka ereyada ee af soomaaliga miisaanka maansida waa wada maqasheen aad baa looga hadlaa lamase oga in miisaanku ku fadhiyo isku xidh ereyo 2 ama 3 ah tan la-aanteed oo aan maansada quruxda badan ee soomaaliyeed jiri lahayn ama jiri karin qaybta lixaad ee silsiladan baan kusoo bandhigi doonaa xidhiidhka miisaanka maansada iyo isku xidhka liaison وبالله التوفيق. محمد سم أحمد شرع.